maanta waxaan isugu yeedhay inaan kelmado kooban ka idhaahdo mawduuca maalmahan Somaliland gaar ahaan guud ahaan dunida oo dhan lagu mashquulay ee ka hadlaya jaamacadda hablaha ee Barwaaqo iyo dugsiga Abaarso waqti badan ku qaadan maayo ka waalid ahaan aniga iyo waalidiinta kale iyo ardayda iyo dadka ehelka u ah ardayda Barwaaqo iyo Abaarso aad bay noo dhibaysaa meel ka dhac bay nagu tahay in maalin walba dadaan mas'uul ahayn oo aqoon yar oo ujeedooyin kala gedisan iyo ajandayaal wata ay caruurtayada iyo hablahayaga iyo caarkayaga warbaahinta kala gedisan ee dunida meel walba ay soo dhigaan iyagoo ka sheegaya waxyaabo fool xun oo afka la soo marin karin oo qof xishood iyo dhaqan leh aan ku hadli karin marka run loo hadlo maanta dawlad bay nahay qofka sharaftiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa waxa damaanad qaado ilaalinaya shuruucda dalka iyo qawaaniinta dawlad bay leedahay wixii ka horeeyay dawladnimada dadka noocaas oo kala ah xabad baa lagu dhufan jiray ee caarka iyo dumarka iyo caruurta waxaan dhaqankeenu fasixi karin oonu sheegi karin oon afka la soo marin karin u quuraya ee markuu waayay sharci adag oo ka qabta iyo dawlad iyo hay'adaha dawladdu inay fuliyaan shuruucdaasi ka gaabiyay waxay fasaxaysaa in gacanta la iskula tago sidii la arki jirayna saasay ahaan jirtay gacan wax laga qaban jiray xabad baa lagu dhufan jiray noocaas oo kale ceeb doon oo kale laakiin waxay ila muuqataa inuu firaaqo helay dhaqankii caynkaas ee gacanta lagu kala aargoosan jiray laga tagay sharcigii dawladda ahaa ee dadka u dhaxeeyayna uu fuli waayay waxba laga qaban waayay marka dadkii xilkaska aan ahayn dadka aan xishoon dadka bilaa dhaqanka ah way ka faa'iideysteen firaaqadaasi soo baxday iskuulka Abaarso waxaa la furay 2009 waa muddo 12 sano iyo badh aan ku sheegi karo arday fara badan oo boqolaal wax ka baratay 280 inan iyo gabdhood ayaa jaamacadaha adduunka loo diray kuwa ugu qaalisan ee ugu tayada fiican jaamacadaha inan afrikaano caadi amba inan afrikaano caadi ma geli karto waayo ma goyn karayaan ardayda Mareykan ee Mareykanka u dhashay ee cadaanka ah wax yar baa gooyo oo gala oo gooyo qiimahooda jaamacadaha loo diray reer Soomaaliya waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo waa wax lagu farxo
waa wax dadkii ka shaqeeyay abaal weyn loogu hayo siday sheegeen dadka ku hawlan kharashka ardayda 37 milyan oo dollar baa ku baxa lacag fiican kula badnaani jaamacadan loo dirayaa qaaliya waan idin sheegay Mareykanka cad boqolkiiba 20 ma goyn karaan ardaydooda ma gelin karaan jaamacadaha waxa kamid ah Harvard University waxa kamid ah MIT oo engineering ah waxa kamid ah Yale waxa kamid ah Columbus oo New York ku taala qof caadi ma galo halkaas ay adeer Soomaaliya gashay dalkoodina way ku soo noqdeen waxa kale oo aan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo ardayda dunida oo dhan naga tagtay ee waxbarasho u tagtaa meesha kaliya baasaboorka Soomaaliland ku tagaan amba ardayda kaliya baasaboorka Soomaaliland iyagoo sida u lulahaya ku gala Mareykan waa ardayda abaarso iyo barwaaqo waa guul weyn oo dawlamaasiyada oo Soomaaliland soo yeeyay inay baasaboorka Soomaaliland ku tagaan ardayda jaamacadaha gashay reer Soomaaliland oo markii horeba halkan laga dhisay markay jaamacadaha noocaas galeen waxay ka gaareen guulo la yaab leh oo aad loo la yaabay tii waxay soo jiidatay warbaahinta Mareykanka ee faraha badan ay soo jiidatay ardaydii reer Soomaalilandna warbaahinta ay soo jiiteen waxay kaga faa'iideysteen inay Soomaaliland qadiyadeeda dadka Mareykan u gudbiyaan 280 ka hablood iyo inamo ee Mareykan tagay waa 280 safiir oo ka shaqo badan oo ka saameyn badan safiiradeena inoo magacaabay dunida jooga waayo warbaahin caalamiya oo aad u awood badan oo caalamka oo dhan gaadho oo laga daawado iyagoo ka faa'iideysanaya ayay ku bandhigeen amba ay ku soo bandhigaan qadis Soomaaliland inan walba oo abaarso amba barwaaqo ka tagaysa amba inan kasta calan 10 waar ah oo reer Soomaaliland calanka Soomaaliland ayuu sii laalaabtaa ayuu shida ku ritaa wuxuu suraa hoolka weyn ee jaamacadda ee lagu qabto doodaha jaamacadda oo qaarkood ilaa 30,000 oo qof ay qaadaan ayay suraan oo dadka ku jira warbaahintan muxuu ahaayay social media qaar badan oo ka mid ah waa arkeen ma aha arday kaliya wax barata waa tabliiqiin ku wareega oo ku wareejiya gobolada Mareykanka qadiyada Soomaaliland in badan oo aqoonna way u sheegeen in badan oo taqaanana way u sii kordhiyeen aqoontoodii waxaan ku soo koobayaa Soomaalida barigii hore waxa loo oran jiray waa dad abaal leh imakana waxaan qabaa inay yihiin dad abaal leh laakiin noocan oo kale ee abaarso iyo barwaaqo wax ka sheegaya waxay bixinayaan sawir ah Soomaalidu inaanay abaal lahayn mid kale idin sheegaya oo saameyn weyn kooxaha campaign-ka ugu jira in abaarsa iyo barwaaqo la xidho in xarunta dhaqanka la xidho in meelo kale oo iftiimayo Soomaaliland u iftiimayo bidhaamaya la baqtiyo
fariinta kale dirayeen waxa weeye ciddii nagu soo socotay joog ciddii nagu soo socotay amba kambaniyaha noqdaan amba safaaradaha noqdaan amba hay'adaha internationalka ha noqdaan amba shirkado shidaal baariyaha noqdaan amba kambaniyada u soo caymiska iyo baananka iyo hoteelada waaweyn iyo u soo haqal taagaya dekada berbera markay dhamaystiranto waa fariin loo dirayo inay joogaan oonay noo iman oo lagu calaamadiyo meesha inay ka taliyaan shabaab iyo kuwa shabaab taageera waa fariin kale khatar ah oo loo baahayay Soomaaliland inay muxuu wax ka qabsado iskuulka abaarsantaas ka haraya haddaba ololahan campaign-kan yaa ka dambeeya waxa ka dambeeya dhowr kooxood oo isku fikrad ahayn laakiin wax kale ka dhaxeeya oo ay wada guuleen oo isku raacsan yihiin waxa weeye inay Soomaaliland jilbaha dhulka u dhigaan oo baabi'iyaan taasay heshiis ku yihiin wax kale heshiis kuma aha kooxahaasi waxa ka mid ah koox diimeedyo marka horeba active ahaa imakana dhufays ka soo dhigtay abaarsa iyo barwaaqo iyo diin baa jirta iyo waa la gaalaynayaa waxa kaloo jira koox kale oo awalba dagaal inagula jirtay oo imaka halkan ku biirtay oo wax kooxdii farmaajo ee karaysnayd waa laba waxa jira kooxo kale oo khudbadii madaxweynaha ka jawaabaya oo wuxuu necab yahayna waan jecelahay madaxweynuhu jecel yahay oo amaanana waa necabahay madaxweynuhu wuxuu garanayaa ka dheregsan yahay qiimaha ugu fadhido barwaaqo abaar Soomaaliland xil aanu itaalu hayn oo inuu 280 ka isagu diro ayay ka furteen dadka maamula abaarsi barwaaqo waa waajib inuu mahadnaqo waa waajib bay ku tahay inuu amaano waana waxa ugu yar ugu abaalgudi karo kooxo waxa jira wuxuu amaano amba jeclaysto iyo wanabi wuxuu necab yahayna way jecel kooxankaas ay gula jira oo kamida ololahan qolada afraad dameeradha raacday baa leeyahay waa la lahaa weey waa la lahaa saasa la lahaa saasa la lahaa saasa la lahaa iyo waa la lahaa weeyo waa group iyagu hugunka uu raacay hugunka uu iyagu raacayo dameeradha raacday oo dadku waa lahaa weey war xageed waxa ka keen de waa la lahaa waxay yiraahdaan kooxahaasi maxay waxaan oo lacag ay noogu kharash gareeyeen haddaanay ujeedo lahayn waa markay doodayaan waxaan ugu jawaabayaa ardaydeen Masar bay tagtaa oo Suudaan bay tagtaa oo Turkiga ay tagtaa oo Taiwan bay tagtaa oo Ethiopia ay tagtaa eegad intaasiba way tagaan ujeedada kuwa laga leeyin baa laga leeyahay hadda ujeedada laga leeyahay maxaa kuwa Mareykanka tagaa ka dhigay gaalo ee kuwa Ethiopia tagaanba Taiwan tagaa ama muxuu ahaay Masar tagaa ay u noqon waayeen gaalo waa dood jaban weey waa dad aan aqoon badan lahayn kooxaana idin sheegay doorku ceeb doon ku leeyahay waa maxay hadaba
waa afhayeen